Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan doonayaa halkan idin kula wadaago sheeko kooban. Oday ka mid ah odayaashii Soomaalida hore baa weligii muu tagin magaalo xilli Ramadaana. Maalmaha ka mid ah wuu ku beegmay xilli Ramadaana magaalo. Markuu magaaladii yimi uu afuray ka bacdi wuxuu yiri soo tuko salaadii cishe. Wuxuu la kulmay iyadoo lagu jiro salaad taraawiix. Kadib salaadii taraawiixda way ku dheeraatay. odaygu uu tukaday isagoo salaadii taraawiix uu la tukaday oo la dhameystay salaadii taraawiixda markuu salaadii taraawiixda ay dhamaatay saddex odayaashii masaajidka ku tukanaya kamida baa uga soo baxay masaajidkii dabadda masaajidka hortiisa ayuu ku sheekaysanaya oo ka sheekaysanaya sicir bararka magaalada ka dhacay iyo kororka qiimaha ee lacageed odayaashii kamida ayaa hadlo wuxuu yiri war hebelow ma ogtihiin in sonkortii ahayd $5 ay marayso $10 oday kale la taagan asaguna halan ka soo booday wuxuu hebelow sonkorti pastadii imsaad ku ogay oday kale uu jooga wuxuu waxaan ku ogaa $10 wuxuu hadda waxay maraysaa $20 odaygii saddexaad baa hadlay oo yiri ma ogtay hebelow bariisku intuu maray week hor markaas uu jawaabay waxa uu maray markii ugu dambeysay qiimo dhan inta dabeetana wuxuu hadaba qiimihii laba laabkii intuu sheegay odaygii intaas uu maraya odaygii reer miyiga haya oo la taagan odayaashii baa asaguna yiri war salaadii cishe imseedin ku ogeydeen dabeetana waxa dhacay odayaashii 4 ragcadood hadaba 320 baa laga dhigay ujeedadaan uga socdaa sheekadan waxa weeye sixir bararka imika sii koraya ee ka socda deegaamada Soomaalida sababo la xiriira koronaha iyo shidaalka dunida oo qaaliyoobay